nimanka waxay marayaan meel aad xasaasi u ah hay meeshii aan horta la rabay galeen adigu ha misaabi may ana la rabay oo maxay tuma jaalad adigu waxa la rabay inuu midna guuleysanin isku dhanaa inuu dhaqaaqin oo cadow ilaahay iyo cadowga muslimiinta iyo cadowga Soomaalida waad inay markaa rakada ku jiraan sida iyaguba u rabaan inaan raka ku jiro yaan anna u rabaa inay iyagu raka ku jiraan Ethiopia waxay tiri hadduu xisbigu mar dawladda xabad ku rido weysadu way ka jabtay waad waa inuu dib isu soo loo diiwaan geliyo waad halkaas ay noo mareysay depression shir buu qabsaday ayna aqoonsanin neebe shir baa loo diray laakiin shirka taajo ka maqan yahay looma dirin marka shirka taajo uu joogaa loo diray shirka taajo uu joogaa loo diray nin gaal ahaa oo sirdoonka madaxa sirdoonka Ethiopia in badan haystay oo la dhaho Getajo Asafa okay sirdoonka haystay Cabdile Kooy ha aad bay isu rafaadiyeen bari iyo Cabdi Warba waa ugu dambeysay oo xig laga qaadayna maalmo dambeysay waa kii yiri soo qarxiyay reformka iyaga yaxbad ha uu soo qarxiyay ninkii baa ayr madaxweyne ku xigeen laga dhigo meeshii Getajo Red hay galiyay waad niman kalena gala dhaxal laga dhigay warqadii baa loo diray neebe neebada waxa way sii ogeyd moogta waxaan ogahay ku sheegay way moogta wasaas mar hadii uunan Getajo Red fadhiyo hawshaas ma soconaysa la warqadda okay intana xogaha u gudgalin ninkii Getajo shir buu qabtay isagana miliis soo saaray golo dhaxiyo miliis golo dhaxiyo iyo guddi film soo saaro ciidan badan oo diray isna labadii golo dhaxaa marka la haystaa wala isku qoyn markii wala isku qoynaya kana duu qabsada shirkaas ansaxmay kana duu qabsada no ansaxmay waa say rabto hay rakadii reebay ugu dhacay waa depression marka wuxuu qayla dhaandirsaday ninkii ay qaraabada hayeen wadankeena waxaan isku haynay waa ka tanaasulay dhulkii Saalaan Basi iyo Baadhimo iyo dhulkii waan ka tanaasulaniyo haddana adaaba haysta hay dabadana kula soo gal nimankaas aan isaga celin lahayna igu caawaalo nimanku waa kuwa marka waa Ethiopia iyo Getajo uga daran isoo markii Ethiopia way magtana dulaya Ethiopia waligiiba soo ma noqonin ke depression markuu haystay cid uu qalab raadsanna waa kan meesha u fadhiya oo taqusan Getajo Red ilaa nimka u dhawaad wasaas garabka saxiid Getajona abiyu isna u qayla dirsaday ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكثر مركز كسر وهذا الدعوة برنامج كحجورها برنامج قيبتن هذا يبقى وضع القراءة وحن كفر القين دون ناس لأن عاصدل كإثيوبيا كوحدة تي بي إل إف أون هوري برنامجين كسر تبيني أيا هذا حال كودو مير عروس أمريا الله بقرب أيا وكلا فرديان شرر أيا كلا قبسدين سلكيش عيد ماذا أيا دنا راعي دبرسيون أيا وحكله جامين أيا مدحونها كمبلجار كهيا مامل كاسي نكلي هذا Getajo Red haddaba xaalkoodu xagu maraya muxuu ku dambeyn doonaa dagaal ma dhaxmari doona dawladda federaalka maxaa la gudboon arrimahaas iyo barnaamijka intuu soo ku falanqeyn doona saaxiibay soo dhawaada waan dhawahay waata ninka tareega marran ka waranay maalmihii la soo dhaafay mid kastoo aynu mashquulno barnaamijyada inaan dug soo tabinin xogo badan baa ka soo kordho shirarkii ay ku balansanayeen way qabteen xagee xaalkoodu maraya nimanka waxay marayaan meel aad xasaasi u ah hay meeshii aan horta la rabay galeen adigu ha misaabi may ana la rabay oo maxay tuma jaalad adigu waxa la rabay inuu midna guuleysanin isku dhanaa inuu dhaqaaqin oo cadow ilaahay iyo cadowga muslimiinta iyo cadowga Soomaalida waad inay marka rakada ku jiraan sida iyaguba u rabaan inaan raka ku jiro yaan anna u rabaa inay iyagu raka ku jiraan waad TPLF shir hordhac ay qabatay oo waxay ku sheegtay 50 sano waqti badan bay asaasan tahay dawladdaas 50 sano meeshii ugu xumayd
ee uu TPLF gaadho siyaasadda dhaqaalaha xiriirka caalamka gudaha kala qaybsanaanta kalsoonida awoodda ciidan konton sano meeshii ugu xumayd oo zero ruux hadduu gaadho dhib ma laha laakiin zero minus hadduu tago yaa sii daran zero minus inay wada taagan yihiin bay sheegeen warkaa farxadda leh kolkii ay sheegeen iyaga iyo guddigii neebe national election board Ethiopia ee xisbiyada xukuma yaa wada tacaamulayay guddigaasi wuxuu yidhi shir cusub qabsada magac cusub la baxa oo aan TPLF hayn ama TPLF la baxa ama isagii soo cusboonaysiista oo aan kii hore ahayn ama jinka doontaan la baxa laakiin magac xisbi cusub oo u diiwaangeliyo liista cusub ee keena nimanka halkaa way isku khilaafeen kolka isku khilaafeen Debrecen hawsha ma raacsana waa lana yaqaanaaye nin fadhigaaga arka looma istaagee anigu TPLF baan ahay TPLF la dib loo diiwaangelin mahayo qorshe noocaas wataa waa Debrecen iyo intii badnayd xisbiga oo isaga la socota Ethiopia waxay tiri markii heshiiskii aynu ku soo galnay Koonfur Afrika yaa sidan qorayay heshiiska ma aqoonsani waxa uu eg buu yiri Getachew Reed halkaas uu beefka yiri wuxuu yiri maxaa la noogu dirayay haddaan la aqoonsanin waxaanu soo saxiixano iyo ragga la soo hadlaanay nidhi wax saxiix ma aanan idin oranin haddaan Debrecen ahay waa lagu sii kala fogaaday meeshaas qoladii guddigii neebana cagta u saartay ninka la Getachew Reed marka wuxuu leeyahay intaan isdiiwaan gelino oo xisbi cusub noqono ilaa sabab hadda maamulkii wax istaa u dhuuqayaa wax badan kama baana yaanu waliba sida aad rabtaan yeelaynaa waxa wadata Ethiopia iyo neeba ninkan wadata shacabkii iyo TPLF inteedii badnaydna waxay la socdaan Debrecen oo raba in TPLF hore la aqoonsado magdhowgeedii la siiyo xafiisyadeedii la siiyo bilaayiintii bir ee daraadeed lacagta Ethiopia loo bedelay in la siiyo wax alla wixii ay lahaayeen oo dhan in loo soo celiyo qorshihii marka noocaas ahaa Ethiopia waxay tiri hadduu xisbigu mar dawladda xabad ku rido weysadu way ka jabtay waa inuu dib isu soo loo diiwaangeliyo halkaas ay noo maraysay Debrecen shir buu qabsaday ayna aqoonsanin neebe shir baa loo diray laakiin shirka Getachew ka maqan yahay looma dirin marka shirka Getachew uu joogaa loo diray shirka Getachew joogaa loo diray maadaama madaxweyne ku balgaarka uu yahay madaxweynaha ka soo kooba oo gudoomiye ku-xigeenkii waana say rabtay iyadu gudoomiye ku-xigeenkii la hadhi gudoomiyahana way eriyay gudoomiyahana waxay ku qasbeen gudoomiye ku-xigeenka meesha soo fadhiisay gudoomiye ku-xigeenkuna waa gacan yare iyada u shaqeeyay shir marka uuna fadhiin Getachew Reed loo wadirin TPLF mid uuna fadhiin bay marka qabatay ansax ma ay ayar qortay marka shirkaas ansax guddiga doorashooyinka dhexe way iska qabsadeen golo dhexe cusub bay samaysteen nin gaal ahaa oo sirdoonka madaxa sirdoonka ee Ethiopia in badan haystay oo la dhaho Getachew Asafa sirdoonka haystay Cabdile Kooy aad bay isu rafaadiyeen bari yaani warba way ugu dambeysay oo xig laga qaadayna maalmo dambeysay waa kii yiri soo qarxiyay foorku iga yaxbad uu soo qarxiyay ninkii baa ay madaxweyne ku xigeen laga dhigo meeshii Getachew Reed geliyay niman kalena gala dhaxal laga dhigay marqadii baa loo diray neebe neebada waxa way sii ogeyd moogta waxaan ogahay ku sheegaa way moogta wasaas mar hadii uunan Getachew Reed fadhiyo hawshaas ma soconaysaa loo warqaday Getachew Reed bahar shir ah oo laba dabaq oo wuxuu qabtay show wax alla wixii ciidan ah oo isaga marka wixii saraakiil ciidan la socdo marka saraakiishii ciidanka ee dagaalka wadankan galiyay ee hagayay yaa isaga la socda marka nin ciidamadii gacanta ku haya nina shacabkii gacanta ku haya ciidan iyo shacab marka ciidanka ka adag laakiin shacabka yaa badan kuwa awood isma raacsanta kuwa laftooda shacab ay haystaan inta markii laga yimaado wasiirka warfaafinta niman jecel inuu wasiir ku-xigeenka warfaafinta yaa hadlay oo Ethiopian federaalka wuxuu yiri TPLF ha xusuusnaato ilaa hadda wadda ugu dhacday ha xusuusnaato wixii oo dhimasho ah ee gaadhay iyo dagaalkii hore annaga iyadana dhex maray inuu ka bilowday arrin la xidhiidha guddiga doorashooyinka
marka micnaheedu muxuu yahay guddiga doorashada uma maantana dagaal marka sidii baa lagu laabay dagaalka lagu laabo hay waa loo hanjabay waad dhiigana kama galgalan karaan wax tawaray maanta isla hayaan hanjabaadda kaga jawaabaan ma hayaan waad intaa markii laga yimaado hay'ada iyo canaantu ma yareen waad xogaa marka soo baxaya okay intana xogaa u gudgalin ninkii Getachew shir buu qabtay isagana miliis soo saaray golo dhexe iyo miliis golo dhexe iyo guddi filin soo saaro ciidan badan oo diraysna labadii golo dhexe marka la haystaa wala isku qoyn marka wala isku qoynaya kana doo qabsada shirkaas ansax maahay kana doo qabsada no ansax maahay waa say rabto hay markaday reebay ugu dhacay waad inta markii laga yimaado xogaa kala soo baxay oo maxay Getachew reeda uu ciidan dirsaday oo saan dirsaday iyo dirsadeen asayaas Afwerki inuu Eritrea ma Getachew mise Debrecen ma ka wada okay Debrecen Debrecen marka wuxuu qayla dhaan dirsaday ninkii ay qaraabada hayeen wadankeena waxaan isku haynay waa ka tanaasulay dhulkii Saalaan Basi iyo Baadhimo iyo dhulkii waan ka tanaasulaniyo haddana adaaba haysta dabadana kula soo galo nimankaas aan isaga celin lahayna igu caawalo nimanku waa kuway marka waa Ethiopian iyo Getachew uga daran isagoo markii Ethiopian way tanaasulaya Ethiopia weligii isagoo ma noqonin Debrecen markuu haystayna Tigray buu ahaa weligiiba Tigray weeye isagoo Ethiopia inuu ku danaysanayo mooyaane wax shaqo u lahaysa malaha xogtaasi way soo baxday cidda uu qalab raadsanna waa un kan meesha u fadhiya oo taquusan Getachew reeda ilaa nimaka u dhawaa dhawaa waa saas garabka saxiid Getachewna abiyu isna u qayla dirsaday waad oo qayla dhaan dirsaday iyo ciidankii meesha joogay ciidankii meesha joogay waxay dhintaan laaba degdeg oo dhiig ku daadan karo yaan qaadaynaa haddii ayna joojinin qolyaha maxaa ku dhacay kicinta dadka wada ee kan wada TPLF waxay u kala fadhidaa garab Asmara laga xukumo iyo garab Addis Ababa laga xukumo oo labada garabba TPLF la faheedi waa weynaayihiin oo haddii dagaal isla galaan waa dagaal Eritrea iyo Ethiopia ay ku dhax galeen proxy waa noqonaya rag miya Tigray ku dhax galeen Tigray iyo labada dham qolo jiida ku soo hayso tabti Soomaaliya Ethiopia ee isugu haynaysa ugu qodinaysa oo kala weeyay maxay ku dambeyn doontaa qolada Eritrea dawada la gashay ayaa adkaan doonta qolada Eritrea dawada la gashay hay sidee abiye dhaqaale ahaan in badan kuma sii caawin kara Getachew ciidan ahaan haba sheeg isagii baa laftu kaga jirta rako gacantu rako kaga jirta oo dharigu saab kaga jira abiye caawimaad fara badan oo maanta Getachew uu ku sii waxayo malaha waad laakiin ninka la yiraahdo Asayas Debrecen wax badan ku caawin kara dhaqaale ahaan ku dhaamaa wadanka ka holcay meel kasta ka gubanaya ma aha ciidan ahaan ku dhaamaa wadanka gudihiisa yaa dhisan oo aan awood jirta aan lahayn awood jiifa mooyaan awood jira oo qaylinaya oo Axmaaro kale ma xukunto Ethiopia Oromo kale ma xukunto Ethiopia Soomaali kale way shay umirigta waxay samaysay garlaadahay anfartii qasba alla ka soo taagay qolam marka maanta Ethiopia ay xukunto oo cashuur toos oo dhaxaynta ka soo xarooto iyo ciidan dhaxo oo toos inta ka soo xaroodo wax lagu maamuli karo ma jirto qolada shishe yana aaminsanahay inay labadoodu ku xidhan tahay guduhu sida shacabku qolada u badan yahay ku xidhan tahay aad u maasantahay adiga amaga waa daawadayaal qodobkana intaas aan ku soo gabagabaynaa waxaan idinku dhaafaynaa amaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal isma dhaafin bulsho yahay ma nabad baa barinaya ma barideen bishaaraan idiin sidaaya bilkhayr dhahaa sariiro wanaagsan oo si wacan loo sameeyey iyo sancadii u dambaysay ayaan idin sidaa fadhiyo kala nooca si fiican loo farsameeyey oo faashinka u dambeeyey iyo filan waa kugu noqon kuraas kala jaad aha oo jimicsiga ku fiican oo markaad jambiga saarto jawigu ku wacnaan oon jahwareer lahayn furaashadii oo nooc walba leh qiimuhu waa mid aad u jaban kana duwan meelaha kale sida Islii haddaad Nairobi joogto si bilaash ayaa lagu keenayaa ee maanta badalbo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nabarka shaashada ka muuqda